Asalaamu calaykum dhammaantiin soo dhawaada mar kale asxaabta ku xidhan kanaalka maanta waxaan xaggan idinku soo gudbin doonaa qiso aad iyo aad u cajiib ah Marwa Cali Maxamed waxa ay shaqaale ka ahayd maktabadda ugu weyn magaalada Basra ee dalka Ciraaq sanadkii 2003 waxaa dhacday in ciidamada Ciraaq ay soo galaan maktabaddii dabadeedna korkeeda ay ka dhigtaan dhufays ay diyaaradaha isaga dhiciyaan kadib Marwada ayaa codsatay kutubta documentary-ga iyo muuqaalada qaaliga ah ee maktabadda yaala in gurigeeda loo raro si looga badbaadiyo burburka ay dagaaladu sababi karaan nasiib xumase soo jeedinteedii iyo codsigeediiba waa laga diiday laakiinse Marwa Cali Maxamed waxa ay go'aansatay in ay buugaagta habeenimo la baxdo oo ay u tahriibso meel ay ku nabadgalayaan sidii Marwa Cali sheegaysa ayaa dhacday oo maktabaddu waa la burburiyay laakiinse nasiib wanaag Marwa Cali waxa ay badbaadisay in ka badan 30,000 oo buug documentary iyo xog kale oo muhiim ah waxa haddaba dhacday in haweeney qora ah oo dhalatay dalka Ingiriiska laguna magacaabo Janet Winter ayaa markii ay sheekada maqashay waxa ay sheegtay inay ugu talagashay carruurta reer Yurub si ay uga bartaan geesinimada iyo midnimada ku jirta sheekada Marwa Cali Maxamed waxayna u bixisay The Librarian of Basra kadib waxaa buuggii lagu soo bandhigay masraxiyad waaweyn wuxuuna ka mid noqday buugaagta aadka loo jecel yahay oo soo jiitay akhristayaasha caalamka maktabaddii Basra dib ayaa loo dhisay Marwa Cali Maxamedna buugaagtii ayay ku soo celisay waxaana maamulaha guud ee maktabadda laga dhigay Marwa Cali Maxamed ayaan jeclahay inaan maanta idinla wadaagno haddii aad sheekada ka heshay fadlan like saar mahadsanidin